qandho way walaal ma santahay waa kuma marka horeysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur taariikhdaada bal oo kooban bismillaahir rahmaanir rahiim dabcan aniga deegaan ahaan Soomaaliya waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan degmadiisa Buulaburte halkaasaan wax ku bartay ilaa tacliimta sare kadibna ardadii imtixaanaadka u gashay jaamacadda Soomaaliyeed baan ahaa laakiin waxbarashadayda jaamacadda waxay ka bilaabatay Suudaan waxaan Malaysia ku sameeyay masterka ninkan hadda odaga cali masaarkiisa ka soo qayb galay Saciid Cabdullaahi dadkii halka masterka ka wada sameynayay baan ahayn kastoo aan kala jaamacad ahayn ka bacdina waxaan dalka UK u wareegay oo koorsooyin kale iyo seminaaro la xiriira arrimaha hoggaanka iyo xalinta colaadaha iyo waxyaalahaas la saabsan aan ka sameeyay marka ka bacdina siyaasadda waxaan soo galay qayb ka ah isbahaysiga dib u xoreynta lagu dhisay Carta gudoomiye ku-xigeenka waxaan ka noqday golaha dhexe halkaasaan iyo hoggaankii wada hadalka Djibouti dowladii lagu soo dhisay oo wasiir ka noqday ka bacdina ilaa xilligaasna siyaasadda siyaabo kala duwan yaan ugu jiray ilaa aan ugu wareegay qaramada midoobay inaan ergeyadii gaarka ay soo maray la taliyaha sare xagga siyaasadda aan u noqdo deegaankan Puntland waxaan ku imid markii ugu horeysay Garowe arrimihii doorashooyinka UN-ka anoo ka socdaan joogay ayaantii la isku haystay 4.5 iyo deegaan doorashada oo degmooyinka la isku haystay dadkii arrimahaas wax ka xalinayay laakiin markaa dhinaca qaramada midoobay aan ka socday marka halkaas ay maraysaa haddana hoggaanka xisbigaas aad sheegtay aan ahay wayahay xisbiga wada jir ayaa caan ku tahay oo hogaamisa bal ka waran xisbigaasi iyo mabaadi'diisa guud si guud noola wadaagay xisbiga wada jir wuxuu u taagan yahay principal qoran annaga dastuurkeena waa faafsan yahay bar ayaan leenahay lagala soo xiriiro warbaahinta oo Facebook oo www.wadajir.org yiraahdo iyo Facebook iyo Twitter account intaba afkaarteena iyo waxaan u taaganahay halkaas ayaa lagu faafiyaa laakiin hadaan soo koobo waxaan u taaganahay annaga soo noqoshada dawladda Soomaaliyeed oo sareynta sharciga iyo dastuurka ku dhisan iyo hanaanka dimuqraadiga ee lagu dhisay nidaamka madaniga ee civic value ama qiyamka madaniga ku dhisan oo dadku inay xor yihiin dawladuna ay sharci ku taagan tahay dastuurkana uu sareeyo midnimada dalka Soomaaliyeedna ay tahay mid la ilaaliyay iyo madax banaanidiisa intaba siyaasadana looga qayb galo hanaan furfurnaan iyo aan ku jirin caburin iyo maaragtay awood sheegasho dawladeed aysan ku jirin hanaankaas ay wada jir u ah inta laga gaarayo qof iyo cod dalka Soomaaliyeed oo madaxda la soo doortay ay noqon doonaan madax lagu doortay qof iyo cod dadka Soomaaliyeed siiyeen awood buuxda ama mandate waxa la yiraahdo afka qalaad la siiyay waxaan rabnaa in dalka taas inta uu ka gaarayo inuu ku sii socdo is-ogol iyo isla gudoon oo talada la isla gudooniyo dadkuna is ogolaadaan oo directionka dalka loo wadayo mid la isla ogol yahay oo yahay qolo kaligeed ama koox kaligeed waan soo aragnay koox qabiil ama koox diineed ama koox si kale u abaabulan oo talada dal kaligeed inay la wareegto damacday wixii ka dhashana waan aragnay laakiin in is-ogol iyo isla gudoon ay ku socotaan rabnaa ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod hagaag waxaad ku sugan tahay Puntland maalinka hore ayaad soo gaadhay Garowe arrimaha cali masaarka madaxweynaha Puntland Saciid ayaad u timid ma lagu casuumay misaadaas xalqaamay ma waxay casuumay maamulka iyo guddiga qaban qaabada xafladda ayaa casuumay casuumad ba ku timid hagaag socdaalkaagu hadalhayn badan buu dhaliyay maalmihii aad imaanaysay baraha bulshada ayuu ku faafay amaro ka soo baxay saraakiil boolis baa jiray oo ku aadanaa inaan calaamada xisbiyo wax xisbiya siyaasadeed lala gelin garoonka gudihiisa maxaa ku gaara oo hadalhayntaas u dhaliyay socdaalkaagu walahi waxaa la rabaa inay taas dadkii ficilka qaaday ka jawaabaan dhalinyaro badan oo taageerayaal ah oo isxilqaamay waa laga joojiyay qaab xisbi inay isku abaabulaan wada jir ah waxaa la yiri dadka la casuumay waxaa loo casuumay ka soo qaybgalka xafladda kaliya laakiin in ay muujiyaan taageero gooni ah oo u muujiyaan xisbi ama shakhsi lama ogola saasaa marsiyo looga dhigay calaamadii soo qaateen iyo wixii kale oo tilmaamayay inay muujinayaan taageerada xisbiga waa laga hor istaagay laakiin de maalin kadib
waxaa soo degay madaxweynaha dowladda federaalka ah si oo uun xisbi camal ah oo inuu olole doorasho lagu jiraana soo dhaweyntiisa igula muuqata aniga marka mid dheelitiran ma ahayn dadka in qaarna laga xanibo dadku inay soo dhaweeyaan qaarna loo ogolaado dabcan isagoo madaxweynihii qaranka oo hadeerto xisbi iyo waxa dadka dhan oo madaxweyne u yahay marka in si gaar ah loo maamusamay diidantaysa maamuuska waa kala labo soo dhaweynta funaanadaha la isku buufiyay iyo agaasinka aan u jeedo wuxuu ahaa mid oo abaabulan qaab doorasho in lagu jiro kale madaxweynahana inuu ogaado xilli doorasho laguma jiro madaxweynuhu wuxuu u yahay in protocol wixii ah oo xelawaan la yaqaanaa protocolka maamuuska soo dhaweynta madaxda laakiin ka badbadisaa jiray waxaad dhacday inaadan ka mid noqon dadkii khudbadaha ka jeediyey munaasabadda waana lagu casuumay sidee ku dhacday inaad khudbadaad iyo aad weydo walaa khudbadayda runtii tafaasiil badan hadda inaan sheegay diyaar uma yahay laakiin waxa dhacay laba maalin issue ah taagan qadiyad taagan dabcan ma filayo madaxda cusub ee maamulka Puntland inay wax dhiba ku ahayd inaan ka hadlo madasha la isugu yimid inkastoo madasha nafteeda lagu xadiday ama lagu koobay inay noqoto maaragtay mahadcelin iyo tahaniyad dirid kaliya ay dadkii meesha ka hadlay madaxda ama hogaamiyaasha qaarkood bay ay u dhawaajiyeen hadalkii laakiin aniga casuumaadaydiina dhibaato weyn keentay oo maamulka u keentay oo la leeyahay maxaa loo casuumayaa hebel iyo qofkaas asaga ah waxay kaloo markaan hadalkaygiina wuxuu dhaliyay dood aad u fara badan oo dad badan oo ka tirsan nidaamka hadda jira dowladda wasiiro leh xildhibaano leh siyaabo kale leh isku dayay inay saameyn ku sameeyaan maamulka ilaa deeha markii dambe madaxtooyadii ay soo faragashatay oo isku xirnaatay aniga hadalkayga iyo kasoo qaybgalka madaxda qaarkeed oo isku xirnaaday oo saas loo muujiyay aniga go'aansaday marka hadalkaaga iyo kasoo qaybgalka madaxda qaarkeed iyadoo la jeeda cadee maayde madaxda meesha timid waa la yaqaanaa hadda inaan saas hadda u siitay tilmaamo doonaya laakiin waa isku xirnaayeen isku xirnaankaas wuxuu keenay de in xafladda de waxa loo dhigay waa caleemasaar ma ahayn xaflad siyaasadeed xaflad caleemasaar madaxweyne loo tahniideeyo doorashadii ka dhacday Puntland lagu dadka loo hambaliyay ay ahayd laakiin waxa moodaa anaga ka soo qaybgalkeena intaas un buu ku wajahnaa inaan dhahno Saciid waa madaxweynaha la doortay waa inaan isnaqaano ka soo xataa siyaasadda iyo inaan hogaamiye xisbi ahay ka soo waa inaan cilaaqay iyo saaxiibtinimo dheer iyo aqoon naga dhaxaysay marka in message-ka meesha risaalada socotana waxay ahayd fariintan in la mahad celiyo oo la tahniideeyo kaliya ku akaad laakiin waxa moodaa xisbiga wadajir iyo hogaankiisaba inay si gooni u beegsanayso filla Soomaaliya dhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo meesha uu tagay iyo meesha uu ka hadlay iyo in lagu haayo waxad moodaa mana qarsanata shacabka Soomaaliyeed waa wadoogiin marka dadkii idin casuumay iyo madaxdii Puntland oo madaxweynaha Shatina istiqaan arrinta ma ka wada hadasheen ka hor intaan xafladdu dhacay waa ka wada hadalnay si fiican waa tan ku heshiinaba in xafladda maadaama aanan la qashqashinay dhibaato ku imaanin si ay u noqoto xaflad sidii loogu talagal u dhacdo hadday jiraan dad cuslaystay aniga hadalkayga in aniga fududeeyo xafladda sidii la rabay ay ku socotaan ku marka adag ka tanasulay madaxda Puntland u tanasulay saasaan ku heshiinay madaxda maxaa caqabadaha aad ku ahaan lahayd haddaad adigu hadli lahayd oo dadka aad ku eedeynaysa inay ku dhibsanayaan ama ku beegsanayaan adiga intan hadda meel kasta ay u daba joogaan waa la socotaa waxa maray dagaal Muqdisho caasimadda ay ula galeen oo hadalkeennay joojiyeen waana soo weerareen seminaarkii ay joojiyeen waa la socotaa aan dhalinyarada ku tababaraynay Nairobi nooga daba tageen oo caqabada dhigeen marka dadkii un baa socdo madaxtii waxaan anigu ka naxsanahay in madaxtooyadii iyo madaxweynihii Soomaaliya ku mashquulsan yahay kaliya xisbiga wadajir xagga u istaagay Cabdiraxmaan xagga ka hadlay iyo salaamay iyo la sheekaystay iyo la hadlay taas ayaga la rabaa in la weydiiyo mar walba oo damacdeena shir jaraad qabato ama aad shirar ku qabato meel ka mid ah dalka iyo xataa wadamada dariska waxa ka dhasha buuq iyo qaylo ayaa la maqlaa dad ku taageersan oo adiga ku difaacaya iyo kuwo badan oo ka soo horjeeda oo adiga ku naqdinaya baraha bulshada isku dhaafsada muxuu Cabdiraxmaan mar walba u yahay mid buuq dhaliya waa su'aal fiican anaga waxaan rabnaa siyaasadda Soomaaliya gacan ka hadal ku socoto 20 sano la soo dhaafay ilaa haddana qaar wada gacan ka hadalka kooxdaas waxa la yiraahdaa al-shabaab halkan Puntland waxa ka jira niman la yiraahdo Daesh inkastay noo soo gudbeen nafteena labadaas koox kaliya hadda siyaasadda Soomaaliya gacan ka hadalkeedii ku haray
inta kale waxaa la isku raacay siyaasadda inay noqoto siyaasad si furan oo dadku fikirkooda isdhaafsadaan oo afkaartooda isdhaafsadaan oo qofkii haayo fikir wanaagsan suuqa uu soo dhigo. waxaan rabnaa inaan u gudbo nidaam xisbiyo badan oo xisbiyada ay ka qaybgalayaan arrimaha siyaasadda. waad garan kartaa xisbin macnihiisa waa maxay? waa inuu ajanda leeyahay, waa inuu sameeyo campaign iyo loolan, waa inuu fikirkiisa gudbiyo, waa inuu aragtidiisa dhiibo. marka waxaa rabaa dadku inay ku mashquulaan marka aragtida qofka, maaha inay qofka ku mashquulaan war muxuu qofkan soo bandhigay, aragtidiisa maxay tahay. waxa la naqdinayo la diidayo marka waa aragtida. waan diidanahay, waan kugu raacsanahay, laakiin in badan dad badan oo aragtida taageersan waa arkay, dad badan oo aragtida dhaliili karana way jiraan. laakiin dowladdu ama madaxtooyada inay isku mashquuliso maaha xisbigan iyo hogaankiisa xaggey tageen iyo la sheegeen iyo waxa ay diidan yihiin oo afkaarta ah waa inay soo bandhigtaan. madaxweynaha hadduu doonayo inuu fikirkii ka fiican hayo waa dadka Soomaaliya u sheega anna haddaan kiisa mid ka fiican waa inaan dadkan xukun tagno waa sida ugu dambeeyay. marka ma waxaa jira khilaaf shakhsi ah oo idin ka dhaxeeya adiga iyo madaxweynaha? maya ma ogi khilaaf shakhsi ah aniga ma jiro. madaxweynaha maalintii laga dhigay ra'iisul wasaaraha waa laga yaabaa anigu nin xildhibaan oo siyaasi oo baarlamaanka ku jiraan ahaa waa laga yaabaa dadkii asaga markaas siyaasadda isku yara qabteen inaan kamid ahay. dabcan anigu waxaan dadka Soomaaliyeed ka qarinayna u sheegaya dadkii Kampala Accord kamid ahayaan ahay oo lagu bixiyay prime ministerka markuu ahaa Farmaajo. waxaan u hadlayana waxay ahayd guddi baarlamaanka Soomaaliyeed soo saartaan ahaa aniga oo 5 qofood ah oo hadalka Kampala qayb ka noqday. waa laga yaabaa asaga inay wali ku taagan tahay maadaama uu la dagaalay ninkii markaa gudoomiyaha baarlamaanka ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo siyaasadii hadda inuu ka bixiyo oo aaminsan yahay asaga. aniga ninkii labaad ee markaas Kampala Accord ama hadalkeeda ama negotiationkeeda ku jira aan ahaa. waxaan u arkaynay maalintaas Farmaajo inuu baarlamaanka Soomaaliyeed oo xaqiray oo ka hor yimid. marka waxaa laga yaabaa inuu asaga taas arsigaas inay maskaxiis ku jirto marka waa laba biyo hoos iska haratay iyaga iska ka ogmay waa dhici karta. laakiin aniga wax kale oo isku nimid Farmaajo oo ka ahayn in oo Kampala Accord ka baxsan ma jiraan. laakiin dad badan waxay fasirayaan inuu dadka ciilka u qabay oo dhan oo kamid yahay madaxweynaha hadda xilka halkan ka degay gaas oo kamid yahay Shariif Xasan oo anigu aan kamid ahay dadkii inuu beegsanayo waagi oo isiri siyaasadda ay kugu yara dhiban waa dhici karta. mar walba oo aad hadlayso oo dawladda arrimaheeda dhalayso waxaad si gaar ah u dhalashaa Farmaajo. maxaa sababay dawladdu Farmaajo kaliya ma? waa su'aal fiican. Farmaajo waa ninka la doortay. dadka Soomaaliyeed dadka ay baarlamaanka si indirect ah doorashadii ku dhacday cidda la siiyay mandate-ka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira waa asaga dad ka dambeeya dhaha ama dad kala gadaal ugu jira asagu talab male asagu go'aan male asagu karti male dad haba waa jira. laakiin aniga sideedaba cidda mas'uulka waa cidda la doortay, cidda la xisaabtamay waa cidda la doortay. aniga ka hogaamiye xisbi mucaarad qofka aan siyaasadda aan dhaliilayo waa asaga ma ahan dad aan la dooran aniga sababaan u dhaliilay ma jiraan. marka qaar soo ma dhici karta inaad dad aan ay galaan talaabo aad marka adigu khalad u aragto uusan isaguna marka ogeyn ama uusan amar soo farin dabadna aad eeda isaga dusha u saarto uusan lahayn? waa dhici karta. laakiin waxaan rabaa falcelinta anigu qiyaasa hadduu madaxweynuhu ka falceliyo oo yiraahdo tusaale ahaan hadda gurigayga la soo weeray hoygayga aniga dadaa ku dhintay madaxweynuhu saraakiishii soo weerartay uu dalaacsiiyey. marka waxaa ii muuqata inuu raalli ka yahay. hadduu marka asagu ogeyn adigu hadaad ficil samayso adigu ficilka aadan ogeyn falcelinta laga gartaa inaad ficilka ogeyn. hadaad falcelis kaaga noqdo mid u jawaabay inaad ogeyn dadku way ku garaabi karaan anna waan garaabi karaa. laakiin haddaan arko dadkii ficilka geystay ama falka geystay oo la sii dalacsiinayo rankigii dawladda meelo sare sharci daradii la xoojinayo waxaan u arkaa marka inuu asaga oo qayb ka yahay. marka la eego dad badan oo arrimahaga naqdiya mas'uuliyiin dawladda ay ku jiraan waxaa hadalkooda u dhacaa in aad tahay nin shisheeye u adeegaya say u dhahaya oo dawladda shisheeye ku xidhan. ma dawladda shisheeye ma ku xidhanta? waa in la cadeeyo hadee moogtahay qofku markii la rabo in blackmailing wax lagu sameeyo ama la madoobeeyo suuradiisa markii la rabo waxaa la isticmaalaa waxyaalaha aad sheegayso kale qaran dumis dawlad shisheeye u shaqeeya. ilaa hadda waxaa la garan lahaa dawladdan u shaqeeya tilmaama dawladdu waa laga kar lahayn dawlad hebel waa dhihi laayihiin. markaas waxaa laga yaabaa inay dawladdaas badan kale yihiin ka baqayaan ayaga naftooda iyo inaysan jirin. laakiin anigu dawlad shisheeyana uma shaqeeyo afkaarteedana way cadahayba. inaad imaaraadka oo kale saaxiib gaar la tahay oo arintii qadar oo xilligii lagu soo weerarayna ku soo beegantay baa dadku sheegaan. imaaraadka adiga maxay ka dhaxay? wax naga dhaxay lama arko. dhowr jeerna waan sheegay. hadda madaxweynaha tusaale yar aan ku siinayaa heshiiskii baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka hor yimid DP World iyo ku saabsanaa
miiska madaxweynaha Soomaaliya wali yaala dadka Soomaaliya ma isweydiiyeen farmaajo imaarad buu shaqeeyaa uu saxiix ilaa hadda heersan uu hor yaala labada gole ee baarlamaanka ansixiyeen ilaa haddana miiskiisu saaran yahay sharci ahaanna waxa waa doo madaxweynuhu saxiix waayo 14 maalmood gudahooda inuu dastuuriyan sharcigaas u soconayo laakiin miiska madaxweynuhu yaala marka waxaan ognahay asaga inuu dadaal iyo raadis ugu jiro inuu cilaaqaad iyo waxaas la kasbado dawladahaas marka wax iska aad waxa la yiraahdaa aan waxba ka jirin oo wax macna ay ku fadhiso aysan jirin oo haysta aniga inay tahay oo la rabo in lagu banaysto aniga xadgudubkayga markii lagu soo weeraray oo kale dhalinyaro badan oo qaarkood la sheegay in madaxtooyada la shaqeeyaan baraha bulshada waxay ku faafiyeen in halkaas aad ka waday abaabulo ka dhana dawladda oo qaar waxay dhahan lacag buu qaybinayay qaar waxay dhahan shirqoole kale oo maleegayay arintaas maxaa ka jira maxkamadaha leegeeyay Soomaaliya aniga waxa la rabaa dawladii waxa laga kari waayay soo gudbiyo waxa haysan shirqooladii iyo abaabuladii wixii inay keenaan yaa rabay wayna ku fashilmeen inay keenaan mana u malay inay iga turi lahaayeen haday hayaan hatta haday maxkamadda xataa geynin inay Soomaali soo bandhigi lahaayeen oo nimankan wad garanaysaa social media aad u isticmaalaan inay keen lahaayeen cadeymahaas waxaasan anigu aan u haystaa laakiin waa been abuur kale oo lagu banaysanayo wali xadgudubkii aniga sharafteedii iyo karaamadeyda lagu banaysanayo sababtoo ah adiga markii afkaartaada la diriri waayo ama fikirkaaga ama aragtidaada loo babacdhigi waayo waa in la dayo adiga suuradaada in la madoobeeyo waxa shaqeeyana hadeertaan waa in suurada Cabdiraxmaan la madoobeeyo ama hal dhaho dawladda u shaqeeya ama waxa soo wada ama waa qaran dumis ama sidii la rabo loo fasiro adiga marka hadda xisbi baad aasaastay aad hoggaankiisa tahay maxay tahay ujeedada xisbigaaga higsigaaga muxuu yahay shakhsiyan marka laga tago xisbiga guud ahaan waan ku sheegay anigana higsiga waxa waa fikirkaas xisbiga u taagan inuu hormaro anaga waxaan rabnaa ku sheegnay dalkan gacan ka hadal waa ku soo daalay gacan ka hadalna waa ku sheegay wuxuu ku dhiman yahay qoladaas al-shabaabka ah fiiri way waa inaas sababta ay al-shabaab gacan ka hadalka u isticmaalayaan waa maxay kalsooni ay ku soo bandhigaan fikirkooda ma qabaan وهدي نمن اسكو كسون يهين الشباب فكر كودي سوق سو dhigi lahaayeen dadkuna haday ku qancaan lama hor istaagi karaba laakiin kalsooni daro waxa jirta in aan la qaadanaynin afkaartooda anigu waxaan u haystaa nin kasta oo gacan ka hadal isticmaala nin kasta oo kala tilmaamo isku daya nin kasta oo kaligii hal dhageysta yiraahda wuxuu kalsooni ku qabin aragtida iyo fikirka uu hayo laakiin hadduu isku kalsoon yahay wuxuu soo dhiga lahaa suuqa fikirkiisa dadka taageeri lahaa dad masaakiin inta la soo abaabulo la bixiyo maanta dhan waxa ma tariiso annaga waxaan rabnaa inuu hirgalo dhaqanka madaniga ah ee ku salaysan dadku inay xor yihiin warbaahintiina xor tahay hay'adaha dawladdu isdheeli tiraan isla xisaabtamaan nidaamka dimuqraadiga dawladda ay Soomaali raadinayso oo laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed ahaan war dawlad xoog leh oo karaamo leh oo sharaf leh oo madax banaanidii iyo ilaalisa iyo midnimadii Soomaaliya rabnaa taas waay waa dawlad sharciga iyo qaanuunka ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobka hadda ku ilaatana dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa xisbiyadu inay sameeysan karaan qofku inuu ka tirsanaan karo xisbiga uu rabo si xor ah u soo bandhigi karo fikirkiisa asagoo wax idan ah weydiisanin dawladda dastuurka ku qoran tahay qodobka saddexaad waxa ku qoran in guriga qofka aan lagu xadgudbi karin xurmadiisa iyo karaamadiisa annaga waxaan rabnaa madaxda hadda joogto waxay madax ku yihiin waa dastuurka marka in dastuurkaas la ixtiraamo oo dad badan waxay ku leeyihiin dawladda in la mucaarada ma dawladda in la yeelo ma war dawladdu haday dastuurka sharciga ka leexato waa in lagu soo celiyo haliyaa sharciga iyo dastuurka waa inaad ku soo noqotaan anaga halkaas aan u taaganahay sideenaba dad badan oo dawladda taageersan baa jira rajo ka muujinaya oo Soomaaliyeed baraha bulshada aad isticmaasho adigu Facebook oo kale waxaan aragnaa dad badan oo aad u naqdiya fikradaha qaarkood erayo ilhaana ay ku geysanayaan inkastoo qaar ku taageersana marka lagu arko waxa dareentaa marka saameyn noocay kugu yeelataa marka waxaan ogaa inay abaabuleeyihiin waxaan dhib ugu haynin dadka haday mar inay abaabuleeyihiin aad ogaato baaritaan la sameeyo oo la ogaado inay abaabuleeyihiin waxaan ognahay xataa qarashka madaxtooyada ku bixiso ciidankaas ku dagaalama Facebook oo aniga qaabilsan faktiskiisaan haynaa macna numberka miisaaniyada gashaan haynaa marka dad abaabulan oo markaad aragtay magacyadooda inay ghost yihiin wax oo aan la garanayn ay yihiin oo 10 nooc ah oo qof kaligiis isticmaalaya 10 account wax dhibaato ah anaga hadeertan ay noo keenay lama arko anaga waxaan rabnaa
qofka fikir nagu jeclay xasee ku cadaysan macnaha see ku ogateen media ka shaqeysa adiga naftaada waad garan kartaa account-ka saxda qofka leh magaca Cabdisalaan adiga lagu yiraahdaa magacaaga iyo waa la qoranayaa iyo profile-kaaga cidda tahay goortaad account-kan sameeyay wax la sahlo la garan karo waa technically wax u baahan ma laakiin waxaan u baahanahay miisaaniyadda ku baxdaan ognahay dawladda miisaaniyadeedu waa qoran tahay dad baarlamaanka ay martaa ugumana qorna Facebook dad ku dagaalama miisaaniyadda milyan la weydiiyay meesha geysay markii la weydiiyay baarlamaanka anaga maaha guddiga maaliyadda markuu weydiiyana dawladdu waxay tiri guddiga hala kala diro hal maalin ma maqash dawladdu dhahayso 42 milyan ma maqne saan ku baxay lama dhihin guddiga la kala diray lagama jawaabin lacagtii maqneed ee miisaaniyadda marka dawladda aanu isku daalimayn hadda aniga adiga waxay social media ku bixisay iyo say u isticmaashay iyo waxay ka shaqeyso qof dadka hadda shaarica jooga cid walba hadda waa ogtahay taas macnaheedu ma sameynayso laakiin Cabdiraxmaan mid istaajinaysa ma hagaag xagee u socda marka Cabdiraxmaan waan ku sheegay anaga xisbiyan leenahay afkaar ku dhisan yahay waxaan rabnaa Soomaaliya in afkaartaas ka hana qaato nidaamkaas dimuqraadiga oo madaniga ah oo dadku ay hortigiin rabaan inuu hana qaadaan mar walba oo magacaaga la maqlo ama wareysigan oo kale xataa marka hore dhiciisa la arko dadku waxay dad badan waxay ka qiyaas qaadanayaan inaad wax dhaliilayso marka ilaa hadda 2 sano kadib dawladdu wax wanaag ah ay qiraysa ma jirto ay qabatay fiiri dhaliisha nafteeda in la fasiro u baahan dhaliish waa wanaag bisideedaba waan ka jawaabi doonaa su'aasha dhaliish waa wanaag dhowr maalin ka hor waxaan soo qoray heshiis ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka ku gaareen magaalada Baydhabo sax oo ku saabsan qaybsiga kheyraadka shidaalka iyo macdanta waxaan sheegay 4 qodob oo lagu heshiiyay inta laga booday dawladda intay ka booday rabto inay shidaalkii Soomaaliya London ay ku xaraashto waxa kamid ah sharciga batroolka in la ansixiyo waxa kamid ah hay'adda sharciga xukuumaysa batroolka in la dhiso waxa kamid ah shirkadii batroolka Soomaaliyeed qaybileed ama suuq geelay in la dhiso in golihii ugu sareeyay ee qaranka ee arintaas loogu noqon lahaa marjic